diimeed iyo kacdoonkii wadaynimo ee hormuudka uu ka ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan kadib bulshada Soomaaliyeed waxaa ku dhashay baraarugsanaan siyaasadeed iyo sidii ay aayahooda uga tashan lahaayeen. dabayaaqadii dagaalkii labaad ee dunida ku baahay wuxuu Soomaalida ku dhaliyay dareen cusub oo ku salaysan gumeysata koorid iyo wixii la halmaala waxaana bilowday himilo wadaninimo oo Soomaalinimo ay ku dheehan tahay sida gobolada koonfureed bishii Maajo sanadkii 1943 waxaa ahdi isu maray 13 dhalinyaro Soomaaliyeed oo u guntaday in ay furaan urur siyaasadeed oo ku wajahan halgan xornimo doon ah oo la magac baxay SYC waxay darbi ku caan baxday daacadnimo iyo wadaninimo ummadina waa u riyaaqday waana la taageeray. SYC wuxuu isu rogay xisbi siyaasi ah oo loo bixiyay SYL Somali Youth League. هو الدولات هو واحد من المعلومات في هذه الكاتبة بدي أقول إلى الصومال تولي فهذا المنطقة اللي نفسه وكان عايش الدول عربي محمد أحمد علبي وطارو محمد يوسف مورو محمد صالح لبني محمد جاجري أي متعاون إنه يوحي معلومات مستخصنة الجماعة أنا طريق الكبرى إليه وعاوية. أجل المنطقة على شيء من العالم لما أعتمد إليه أشياء عايش الدول وشكله طبعا بيجي بالسلطة وطريقة إدارة السكن نرجع للعقوبات شكرا لكم الدعاء عاطيسي من المسلمين نرجع للدنيا عرساء وضع في الدنيا والشركة عليك ما نفتح مجالات ولا يستطيع هذا بسبب العادة والرجال كورمال لا يوجد كورمال مع كل مشكلة تنوع من الكورمال أروح عنها من ذات شجرة وراها كورمال كنا نتجاوز أفضل يتجاوز بشيء شركة ما يعطي كونغرس ما يعطي وهو كونغرس ما يعطي ويقول الشباب أما يقول الشباب إلا بدل المرأة ولقبه كلامي اللي هو SYC اللي بدل SYL هي السياسة وقت ناس تدوات اللي أعتقد من تدوات الوضع الياسير المكمل وضحوها يقول مركع يعطي الله نبي كارية اسكو وقت اللي يعمل لهاي بلك بعد وقت بعد يقول الأبوض يعطي ياسير اسكو وقت اللي يعمل وضع فيه وضد وضع فيه أما في المدرسة وضع فيه إلا في المدرسة يقول يتقين إن عبد الله وغيره geeridii marxuum Yaasiir Cismaan Keediid waxa xogayaha guud loo doortay marxuum Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo ku xigeenkiisii ahaa markaa oo dhaqdhaqaaq siyaasadeed Soomaaliya ka aroorsanaa oo miyay magaalada ku wada fiday ama gaaray doodan oo dunida saddexaad maanta ka tirsan ma aanu qabin barnaamijkaasi siyaasadeed iyo midnimo bulsho toona sidoo kale dhaqdhaqaaqa xornimo doon ee Soomaaliya ka shacbaxay wuxuu yaabiyay amka ku riday gobolsigii ka tirin jiray goboladii Soomaaliyeed ee kala ahaa Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska iyo Xabashida. بالحالة المساعدة مثل حزب إنجليز كنا نقول مساعدة طليان يا وحوار طليان كنا نقول مساعدة إنجليز يا وحوار الله يرسل مدى عن ذاتي كتابين ويوقفكم وقع وقياسه هي أقوم تاريخي هي تقاليد تاريخي هي تقاليد الصومالي كتاريخي ما يمكن يسكن يصعب كحزب وحرين المسؤولين أركان ما يمكن يسكن تقارعان كل مرة برشان قدام سياسة بقى قوام من الناس عن كيس كجري ومضى صحيح حتى أنا أسوري حتى أنا وضع تعطيك عن كان صحيح حتى معه ولا تعطيك حزبي لا وضعها وفيك حزبي وحارانك أحالك حزبي لا المقالب شك
وقت الآن جدا دعي كيف مركو قبل أو بالنسبة للجيل في قريبين وشارك قريب كيس ما في واحد شرحنا وضوء أحطه من صومالي شيئين مثل واحد الوالين من حسن لأسفل العراق وأنا التولة أما خبيعة أما قبيلة أما صقجان أيام الوالي وحوالي بنت أسوائل waxay durba astaan u noqotay dalad midnimo iyo qaranimo xambaarsan oo ku fida dhulka Soomaaliyeed sida daraadeedna waxa ururku bartilmaameed uu ka dhigtay xurmo dhalin ee mideynta shanta Soomaaliyeed inkastoo himilada Aswaa'il ay ahayd mid la maalgashan ah haddana cadow la'aan mayan ahayn oo waxa isu kaashaday maamulada dalka kala xukumayay iyo dhowna qaadayaashii u adeegi jiray waqtigaasi Aswaa'il waxay ahayd kacdoon bulsho oo rag iyo dumar u wada guntadeen oo nabad iyo colaadi midna lagu maqwalin karin halgankii kuwii ku nafwaayay waa loo mashxaradi jiray taasuna laba kacleen bay u kordhisay naftii horeyaashii ku hoobtay oo geediga xornimo doonka carada kaga jiray intii kacdoonka xornimo doonka lagu jiray ilaa laga qaatay xornimada waxaa dhaqanka ummadda ka tirtirmay hab dhaqankii hore lagu dhaqmi jiray sida atirsukufaanka beelnimada gobolaysiga baalgelinta naasnuujinta bahnimada qabiilka laaluush cunada eexda iyo wixii la mid ah waxaa ambaqaaday qoweyne Soomaalinimo midnimo bulsho istakoorid la'aan sinaan iyo cadaalad isku tiirsanaan iyo jaalnimo buuxda waxaa lagu soo socday dowladnimo raadis iyo axyaa wadani iyo dadan kala leexanin isku hooyo isku aaba adugii badnaa ee ka soo horjeeday Aswaa'il wuxuu waayay meel dabacsan oo ka galo si uu halgankooda ku fashaliyo taasoo hagaardaamadeedu soo gaartay ilaa xirnimo laga qaato ururkii leegadu wuxuu samaystay maamul hoosaad uu ku filiyo himilada la teegsanayo sida guddi dhexe oo muqdisho fadhiyay oo ka talin jiray arrimaha maamulka xisbiga waxa uu xil saarnaa howlwadeeno ku xeeldheer maamulka iyo taakulaynta guddigaasu wuxuu dejin jiray xeerka ururka qorshaha howlgalka iyo siyaasadda guud ee la tibaaxayo gobolada koonfureed ka sokow naadiga leegada waxaa laga furay degmo kasta oo dalku ka kooban yahay kulay ku ahayd goboladii Ingiriiska iyo kan xabashidu ku hoos jiray magaca saddexan muslimiin magaciisa oo saddexan aniga waxaa yiraahdaa maxamed faarax ismaan yaa muslimiin المسلمين هم بحي وقطعين ممكن عن تجارة وربطي وماس عن عالم المنبو هذا الحين أما ما يطولي وجب ما يطولي هيكل المسلمين هذا نفت المغرب لا أمي بحكي والله أنا لا أمر في الجيجا دورمان كان يعفرتم واحد عملي له مستشفى وكان على الجزيرة وكان على أنا قلت للمدرسة أطلب السين هذه أطلب العالم في المغرب صار العالم ما يسمى ثالث في المدرسة وكان محاربة وكان غيره ما في إني كل وجود العالم فينا دجيل أفضل ساعة شمس ساعة مثلا العالم هنا كان أتم وعن صوفها ومن إحنا ولا بد على الوقتها كفر غيرنا بشمل سيدات دعوة اللي تقول العالم في الماشي عن كل اللي ما يقول إن السبت كفر عن كل سبع نواصل الفريسة سيفر عاتل لكن عسكر الإنجليز كحوجين سوري جيد والعالم فاتي فلاح فاتن أبي أبو مالك وحفظ الولاء ومالك فلاح سيكان عسكرت يقول له صدق عليه رفض من دعم دخول صدق صدق وصدق دام جيدا عليه يحضر صدق قال يعرف دام انت على دام هلك عرف هو يقول سبب اسكول حريري جدا لبدو درسيون كلاغدا او بيدو يمت حمر سبب اسكول حريري جدا كانوا اهي يعني هو اسكو حرني مر والله بعناني وعائمان هاي وفدي بانو إيمان هاي يعني ضد كل يابا يعني الشراعي يعني سيدي مشير إيمان هي الواشري يعني وحنا تسعي يعني مركي كومنتات شنطالة أي حمر كسر بحيسو جيدتك أردن وحنا بيجي جرني هرسيتك
ayaa maaragtay isagoo أنا فاضي إنه استنتجوي كي يقول عندك أنا وضعنا بس يانو ما نقدر نبشيبني إلى ما يفهم كأنه ما يشدني سنة إنتاس يعني الحريق اللي شيء مشير إيمانية waxaana maamuli jiray howlwadano ku caan baxay howlkarnimo iyo daacadnimo dhaqaalaha xisbiga leegada lagu maamuli jiray waxaa laga aruurin jiray intii markaasi mushaar qaadin jirtay dumarkana waxay iibin jireen dahabkooda si loo kabo howlgalka ururka leegadu waxay abuurtay kalsooni Soomaalinimo waxayna noqotay baaq la isku afgarto oo la isugu hirto horumarku leegadu gaartay yool ay dhalisay waxaase lagu ahaa daacadnimo xilkasnimo wadanimo hil iyo hooy wadaag niyad sami bulsho kalkaalid sinaan cadaalad iyo midnimo qaran عبدالله يفتح مسكي سنين تليانا يطانو جريدة الصوت على الصومالية تشيست الميلاد وكعب الصورة هديها يمين الأمور السعودي لولا الميلاد وكعب كان شبني وكان مغطي إلي كالسوري وطني النمو حقيقة مضاعبه ياسين يا عبد الله ياسين مثل ياسين وكل ياسين أعطاك اسمه وطور الاستئمار كان رجال يوحكم ويقول يستطيعنا كما في شيء تنتري انت محكم الدلال سياسة اللهم حديث ياسين مكي لوردو سيدا او محمد الشيخي حقيقة لوردو ورقب أهريسي ورقب بضل لوردو أفكر وين نوجد إلى وين يا رجل إنجليزي يقيم بادرات السبيعي أجدان كم زهايين ورقبة تقال وحمد ياسين وجوه الجنوجة وإليه جديد الصوت حديث بلوك السيحة كريم يقول ذلك مكة لما يبان مكة بكون قدير وتجي مكة ياسين راهو في شيء عبد الله الله يرحمه وليه هاي وحالي إلا وإلا مع الدار وشعرت الصبح وكذا جميع محاضرة صنتها وربنا من الله بشرط أن الله يحيث إلا إيك هذا عبد الله يحيث مكة معها كامل عبد الله يحيث مدلوية هذا مكة شيكرة وهذا النور الشيكرة بيشيك وفي وانية وفي فرعون وآنا تنظبا وميبان كل شيء عبد الله عيسى محمود wuxuu ku caan baxay maamul wanaag ururkii xirnimo dhalinta gobolada koonfureed kaasoo lagu xushmeeyay inuu noqdo wasiirkii koowaad ee gobolada koonfureed ka hor inta aan la qaadan xirnimo buuxda jagadaasi uu sii hayay ilaa markii xirnimo buuxda la qaatay oo waqooyi koonfur ay mataanoobeen dabadeedna la dhisay dowlad madax bannaan oo loo dhan yahay cabdullaahi ciise wuxuu horyaal u ahaa raggii ugu dhabar adkaa israaci gobolada waqooyi iyo koonfur leego ma jiri lahayn cabdullaahi ciise la'aantii cabdullaahina ma aanu jiri lahayn leegada la'aanteed xornimona ma jiri lahayn leegada la'aanteed markii xornimada la qaatay oo la dhisay dowlad qaran cabdullaahi wuxuu si buuxda ka qayb qaatay inuu wax ka dhiso dowladda cusub ee loo dhan yahay markii dowladii kacaanka ahayd ee dhalatay cabdullaahi ciise waxaa safiir looga dhigay wadanka Sweden marxuum cabdullaahi ciise wuxuu dalka uga tagay magac xushmad iyo qadarin leh oo jiilasha dambe ay ku halqabsadaan xushmadda iyo karaamada ummadda cabdullaahi ciise ummaddu u haysay waxay muuqatay maalintii aaskiisii ay ka soo qayb galeen dhammaan golihii sare ee kacaanka madaxdii dowladda iyo bulshooyintii Soomaaliyeed naqsho ku sugnayd ummaddu qaran ma hanato haddaanu lahayn haliyo qarnimada ku dhaadato oo taariikhdu ay xusto
علي عبد الوشيني أبكي السبقين الكريم كل قفكة إيه كل هذه قفكة وقفكة قصة بلا حفيزك وقفكة صوت مثلا وإستاني مصر علينا إلى إنك تقدر حتى ذكر مثلا إلى يدك ست عن الغمرية وقيلنا إليه وشقاء القصة السجل والصبح إنت منك حرمت في كل الدولة إلى إنك تقدر الحاجة كما أرسل هذه مرة وحان تقيم من الموضوع هذا أن أنت تقيميك فهذا أن بيشر ما أنه من هذا وحان مقاطعة كبيرة صومالي يسوي مانتا ما طلبت تنقيه الجريد وحي الواقع في الجريد يسي الجريد أخرى شعر كان الواقع في الجريد وحي موجودة وحي الصدر وعامة من وحدة إجواري الخير لأنه الهام وحي الصدعة مقاطعة الكبرى وحي ما شاء الله من الكلام تدهلنا ربي الرحمة ربي غنو كشبو رابطة ولي غير كل شيء سن 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 كونو 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 كفيو رحمانو سوماليدا كونو لا اله الا الله محمد رسول الله الدورة ككغتا كيهي مرورتا ليلي دل الرقرقين رقان هديني لبت لبا هيروني دل الرقرقين رقان هدين باليدي ربتاي الله يو لبت لبا هيروني
Thank you.